soo dhawaada saaxiibayaal dokumentarigeena saaka waxaan isdul daagi toognaa mid ka mid ah deegaanada ugu halista badan dalka Koonfur Afrika gaar ahaan gobolka Western Cape ama agagaaraha magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Inta badan dokumentariyada meelahan ka soo diyaarino oo meelaha halista ah ee dadka ajnabiga lagu dhibaateeyo maadaama South Africa ay ka mid tahay dalalka caalamka ugu amniga daran. Markan waxaan ku istaagaynaa Kulkuletu oo xaafad dhacdo xaafadaha isku raranka ah ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Asaasiteedkeedan uu ka soo bilowday xilli hore apartheid time-kii ama xilligii gumeysiga. Dadka ku nool inta badan waxaa lagu sheegaa inay yihiin dhowr dabaqo hoose, dabaqo dhexe iyo dabaqo sare. Dabcan dadka buushashka degan waa dadka dabaqada ugu hooseeya degan, walow ay jiraan dad aad hantiilayaal u ah xaafadda degan. Inta badan amnigeeda meeluhu qaar waa fiican yahay, meeluhuna waa halis. haddaan tusaale ka soo qaadana deegaan lagu magacaabo Barcelona oo ka mid ah deegaanada ugu halista badan dalka Koonfur Afrika. sanadkii hore dhammaadkiisii iyo sanadkan bilowgiisiiba waxaa lagu sheegaa meelihii ugu halista badnaa ee Soomaalida lagu laayo. Waxay kaamarooyinka CCTV soo qabanayeen Soomaali la dhacayo qoryo waaweyn oo AK-47 lagu dhacayo. Amni ahaan kama ammaan badna meelaha halista ah ee dalka Koonfur Afrika, walow mararka qaar la sheego inay xaafada nabad leedahay. Deegaanka aad ayuu u baaxad badan yahay, balse haddana Soomaali badan ayaa sanadkan aad loogu laayay Ethiopian. Lacagaha laga qaadana aad ayay u badan yihiin. Mar dhexe waxaa dhacday oo bishii Maajo sanadkan in dukaamo badan la xiray, cabsi laga qaba inay lacagaha soo bataan maadaama bil walba ay imaanayeen tuugo cusub. Waa meesha ugu badan ee tuugada ay lacag ka qaato dukaamada, ilaa iyo 7 tuug ayaa lagu sheegaa bishiina. Waxay dhiibaan Soomaalidaasi 12,000 oo ran oo ah lacagta ugu badan oo $1 ku dhow ala dukaan. Haddii ay dhiibi waayaanna waa la dilaa. Dabcan deegaankani waayadii hore waa uu roonaa, balse hadda waxaa lagu sheegaa mid ka mid ah deegaanada ugu halista badan adduunka iyo lababa soo galaynin. Tuugadu caasilayda u badan ayaa inta badan degto, waana meelaha caasiyada ugu badan ee tuugadu ay leedahay ay hoy ka dhigtaan. Soomaali badan ayaa dukaamadooda iska raray ama iska xiray, qaarkoodna si degdeg ay ku iibiyeen Ethiopian ayna ka gateen. Waxaa la sheegaa dukaamada qaar dadka iska lahaa inay ka tageen oo ay shaqaalihi iska siiyeen xitaa, maadaama ugaarsi lagu bilaabay. Tuugada lafaweynta ee aadka u hubeysanaya degan weliba xaafaduna ganacsigeeda aad ayuu kala socdaa. Muuqaal ahaanna xoogaa waxay ka yara qurxan tahay deegaanadii ka horreeyay ee aan soo sheegnay sida Filipi, Kaliija iyo deegaano lamid ah. Deegaanku baaxaddiisa aad ayuu u weyn tahay, ugu yaraana 7 ilaa 8 milyan oo qof ayaa ku nool. Waana sababta dadka ugu tirada badan iyo tuugaduba ay iskugu dhex nool yihiin. South Africa xaafadaha isku raranka iyo meelaha aad dadka u degan yihiin waxaa lagu sheegaa inay tahay meelaha ugu tuugada badan uguna ganacsiga fiican.